xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland waxay ku dhawaaqeen isbahaysi cusub oo ay ku qaybsan doonaan shir gudoonka golaha wakiilada iyo maayrada magaalooyinka waaweyn ee dalka. waa isbahaysigii labaad ee mucaarad Soomaaliland ah ay sameeyaan iyadoo ay ugu dambeysay sanadkii 2005 oo ay isbahaysteen xisbiyada UCID iyo Kulmiye oo labaduba mucaarad ahaa waqtigaas. Ismaaciil Yare oo ka mid ah saraakiisha xisbiga wadani ayaa ka waramaya isbahaysiga cusub ee labada xisbi ee wadani iyo UCID. haddaan u soo noqdo ujeedada saxaafadda la qabtay waxa weeyaan qaraar iyo go'aan ay wada gaadheen labada xisbi qaran oo ay u arkeen inay tahay wada jirka iyo midnimada Soomaaliland meel kastay joogaan xaqna ay u leeyihiin sharciguna uu siinayo. qoraal ba halkan yaala labada gudoomiye xisbi saxeexeen markii labada xisbi qaran hogaankooda uu ka shiray go'aanna la gaadhay iyaguna ay gudoomiyeen. warqadani waxay tilmaamaysaa qoraalkani tilmaamaya waxay ku socotaa dhammaan mas'uuliyiinta hoos ku qoran. waxa ogeysiin kula gudida fulinta xisbiga UCID, waxa ogeysiin kula gudida fulinta xisbiga wadani, waxa ogeysiin kula xildhibaanada labada xisbi wakiilo iyo deegaan ee uga soo baxay labada xisbi qaran ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. ujeedada taariikhdu maanta bishu waxa weeye waa 6 waa bishii 2021 ujeedada qoraalkani wuxuu yahay magacaabis gudida isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ah ee hoggaanka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. qoraalku wuxuu dhigan yahay sidan soo socota. markii ay darseen labada xisbi baahida loo qabo in la sameeyo guddi isbahaysi, markii ay u muuqatay in la dardargeliyo howlaha wada shaqaynta labada xisbi mucaarad, markii ay sameeyeen wada tashi hoggaanka sare ee labada xisbi mucaarad, markii ay ku qanceen xisbiyadu waayo aragnimada iyo aqoonta guddida. maanta oo ay taariikhdu tahay 6 Juun 2022 waxay hoggaanka sare xisbiga mucaaradka ah ee UCID iyo wadani magacaabayaan guddida isbahaysiga xisbiyada mucaaradka ah ee hoggaaminta golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka Jamhuuriyadda Soomaaliland. tirada u horeysa ee xisbiga qaranka ee UCID uu soo saaray guddidaasi waxay ka kooban yihiin 5 ka koowaad iyo xilkoodaba. ka koowaad waa mudane Saciid Cumar Axmed Saciid UCID oo dhinacayga midigta taagan ayaa koow ka ah, waa guddida xisbiga UCID ayuu ka mid yahay. 2 mudane Shucayb Maxamed Muuse guddida xisbiga UCID. 3 mudane Axmed Maxamed Allaale guddida xisbiga UCID. 4 mudane Maxamed Cali Bilaal guddida xisbiga UCID. mudane Bashiir Xasan Xamari guddida xisbiga UCID. guddida xisbiga UCID waxay ka kooban tahay 5 xubnood oo ka wada shaqayn doonaan 5 xubnood oo ka tirsan xisbiga qaranka ee wadani, iyaguna waa kuwa halkan soo socda. tirada guddida xisbiga wadani waxa weeye 5 xubnood. waxa ugu horeeya xildhibaan Cabdulqaadir Xaaji Ismaaciil Jirde oo wada garanaysaan, siyaasi ruug cadaadi ah, baarlamaanka intuu ku soo jiray aad garanaysaan, madaxdii dalkan u soo halgamtay ka mid ah. 2 mudane Xirsi Xaaji Cali Xasan oo aad garanaysaan, waa guddida xisbiga wadani. mudane Ismaaciil Aadan Cismaan oo aniga ah, waa guddida xisbiga wadani. ka afraad mudane Cismaan Afgaab Nuur waa guddida xisbiga wadani. 5 mudane Maxamed Faarax Cabdi waa guddida xisbiga wadani. waxa warqadaasi saxay oo gudoomiyay markii ay isugu yeedheen labada dhinac ee hoggaanka xisbiga wadani iyo xisbiga UCID. waxay labada gudoomiye xisbiga heer qaran go'aamiyeen wataan kor ku soo sheegay. waxa warqadan ku saxaxan Faysal Cali Waraabe gudoomiyaha xisbiga UCID. waxa halkan ku saxaxan Dr. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi gudoomiyaha xisbiga wadani. وبالله توفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mucaaradka Soomaaliland waxay haystaan aqlabiyada baarlamaanka 52 kursi oo ka mid ah 82 kursi ee golaha wakiilada ayay haystaan imika
sidoo kale waxay ku guuleysteen aqlabiyadda dhammaan degmo doorashooyinka Somaliland marka laga reebo hal degmo, waxayna ka dhigan tahay inay maayirada magaalooyinka oo dhan mucaaradka gacantooda ku jirto iyo shir guddoonka baarlamaanka labaduba. mucaaradka Somaliland oo lagu dhaliili jiray inay kala socdaan ayaa hadda u muuqda qaar waji cusub oo siyaasadeed la soo baxay kadib doorashada ay guusha weyn ka gaadheen. Khadar Hayba, Saab TV, Hargeysa.